Sheekh Cabdiraxmaan Dheere oo ka mid ah culimada waaweyn ee dalka ayaa ka hadlay khudbad uu hore u jeediyay taasi oo uu sheekhu kaga hadlayay goobo ka mid ah magaalada Hargeysa oo ay ka dhacaan macsiyo waxaanu sheekhu tilmaamay in hadalkiisa si qaldan loo turjuntay isla markaana waxa uu ka sheekeeyay dhibaatada ay leedahay in macaasida la joogteeyo amaba goobaha ganacsiga ayagoo dadka ka faa'iideysanaya goobahaasi macaasi lagu sameeyo isla markaana ay ka ganacsadaan macsiyada iyo ka ganacsida macsiyada iyo dhibaatooyinka ay leedahay waxaanu sheekhu soo hadal qaaday isla markaana u duceeyay shakhsiyaad ka mid ah ganacsatada oo ay naseexooyin hore ay culimadu ugu jeediyeen qaatay waxaan markaa jecelahay khudbadaydan dambe inaan baraarujiyo dhowr arrimood oo hadalladii khudbadii jimcihii hore aan idhi dadka qaarkood si qaldan ay u turjunteen fisqi iyo xumaan baynu ka dignay iyo macsiyo dhammaanteen aynu markhaati ka nahay dawlad iyo shicba dalkeenana aad iyo aad ugu soo badanaysa cid wal oo qiiro diinaan lihina ay ka danqanayso ciddii ka hadashana waxa weeye ay ku farxayso qofkii wanaagsani taasi waxay keentay goobaha xumaanta lagu sameeyaa ma laha meel cayiman goob kastoo xumaan lagu sameeyaa ha dhawaato ha fogaato waa goob xun weeye haddii laga digo ama tusaale loo soo qaato goobaha qaarna macnaheedu ma aha in kuwa kale xunxuni aanay waxa weeye aanay la mid ahayn goob kasta oo xuni way xun tahay meeshay doonayso waxa weeye arlada buqcadeeda ha kaga taalle arlada buqcadeeda dhulkay meeshay doonto ha kaga taalle goob xumi waa goob xun dadka qaarkood quluubtu madoobaatay oo aan qiiro iyo markaa hinaasad diineed midnaba ku jirin ayaa waxay u fasirteen markaynu goobaha qaar tusaale u soo qaadanay inay arrintaasi ay tahay macnaheedu inay halkaasuuna ay xun tahay sidaa maaha walaalayaal khudbadaydii horena afeef baan ka dhigtay qabyaaladda waddankeenna barriisatay inay keentay xataa haddii xumo laga diga in la dhahdo cid baa loo jeedaa taasi markaa waxaan u sheegayaa ka xumaha samaynaya iyo ka difaacaya labadaba xumo waa xume kii xumaha dadka la dhex yimaadana si babligaa looga digi isaguba ma qarsanee wanaagga sheegiddeedana la qarin maayo taasi waa qodob koowaad oon baraarujinayo qodobka labaad een baraarujinaya waxay tahay dadka madaxda ah ee ummadda muslimiinta u taliya iyaguna muslimiinta ah shareecadeena islaamku way diiday in dadka lagu kiciyo in waxa weeyaan la fadeexadayo dadka dhexdooda xataa hadday qalad la yimaadaan in hoos loogu nasteexeeyaa nabigeenu ina amray calayhi salaatu wasalaam man ra'aa min amiirihi shay-an yakrahuh falaa yubdihi calaaniya wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam qofka ku arka madaxdiisa xumaan yaanu si babliga u sheegin gacanta ha qabto falyansaxu siran si hoose ha ugu nasteexeeyo fain qabila fadaak wailaa qad adda aladii calayh hadduu aqbalo waa sidii la rabay hadduu aqbali waayana tii isaga waajibka ku ahayd waa uu gutay sidaa daraaddeed sharci iyo diin uma arko diintuna ina fari mayso aniguna ma aaminsani cid kasta oo xaqa ilaahay fahamsiiyena ma aaminsana dadka madaxda dadka in lagu kiciyo amaba in markaasi waxa weeye ummadda laga horgeeyo markaan mas-uuliyaadka tilmaamay culimada mas-uuliyadda saaran waan sheegay madaxda tasaaranna waan sheegay macnaheedu maaha madaxdu inay xun tahay ama laga faa'iidaysto waxaan halkan uga ducaynaynaa mas-uuliyiinta iskale ama mulkiilayaasha iskale hodheelka waxa weeye ku yaalla abaarsa agteeda oo la doonay xalay in lagu dhigo show dabeedna diiday markay culimmadu u nasteexeeyeen ilaahay ha barakeeyo oo maalka ha u barakeeyo oo ubadka ha u barakeeyo kuwa kale hodheelada lihina ha ku daydaan kuwa beeraha lihi ha ku daydaan ilaahayna ha ka baqaan bulshadana fasaadka ha ka daayaan